Sheekh Xasan Barsane wuxuu ahaa haliyey Soomaaliyeed oo gumeystihii Talyaaniga u babacdigay. meydkana waa la xaqiraa Sheekh Xasan Barsane boosow la ayaa sayidka iyo dhagax meelaha ay saaran yihiin marka hadda waxa u qodan lambar 4 soobe meeshii laga dhisay taariikh 4 October ya kalkeen saarnaad Sheekh Xasan Barsane أما سوق بيرتا سوق بيرتا بلان سفير تاريخ دوا بدل تاجان انت كليه لو كوبين تنجير كدحسون انت كو هوس جرتنا هلا سو سار انت لما غعاب انا هلا سو سار دمان جid kaaro taalooyina kan naga dambeeyo taalooyina kaas kale taalooyina kan kale taalooyina dhamaan laga wada dhigo ma la waay hal wada duusho laga taalo la aad intaas waa helaya xaq alusin Sheekh Xasan Barsane wuxuu ahaa haliyey Soomaaliyeed oo gumeystihii Talyaaniga u babacdigay sidoo kalena caan ku ahaa inuu ciidankiisa ka barbar dagaalamo. Waxaa ka mid ah dagaalada isxixigay oo ay guulaha ka soo hoyeen asiga iyo ciidankiisii: dagaalkii Buulabarde, dagaalkii Ceeldheere, dagaalkii Hiilweyne, dagaalkii Jilyaale iyo dagaalkii Hareerile. halgamaa Sheekh Xasan Barsane waxaa gacanta ku dhigay Talyaanigii asigoo dagaalamaya 4 Abriil 1924 sida ku cad buugga Orizzonte di Impero oo uu qoray Mario Di Veggio. isticmaalkii wuxuu ku xukumay 30 sano oo xabsi ah, laakiin waxa uu ku geeriyooday xabsiga dhexdiisa 3 sano kadib 13 January 1927. waxaa la sheegaa in uu u geeriyooday sun loogu buufiyay qolka uu xabsiga dhexe ee Muqdisho kaga xirnaa.